يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نصيب وناك maanta qadarta ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay waafaqday inaannu u soo gudbinno dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed ee luqada af soomaaliga ku hadla axkaamta ramadaanka oo aan u tilmaami doonno si kooban biidni illaahi subxaanahu wa tacaala, anigoon ku dheeraanaynin qodobada qaarkood. haddana waxaan isku dayaa inaan wuxuun ka tilmaamo sida qofka bilowga ah doonayana inuu alla caabudo, bisha ramadaanna uu soomo sidii nebi moxamed u amrayna uu u soomo sala allahu calayh wasalam. waxaan u soo gudbinaynaa maaddo ka kooban axkaamta ramadaanka oo muujaz ah oo la soo aruuriyey oo la soo gaabiyey. waata kelimadii oo bilaabatay. waxaanu ku bilaabi doonaa ama aanu ku bilaabaynaa qeexitaanka maxaa la yidhaahdaa ramadaan, ama soon maxaa la yidhaahdaa. soon waxaa la yidhaahdaa xagga luqada carabiga inaad afka ka haysato wax kasta oo soonka kaa burinaya, hadduu noqdo wax la cuno, hadduu noqdo wax la cabo. gadaal baan ugu tegi doonaa insha allah waxyaalaha soonka buriya, laga soo bilaabo goorta ay salaada subax dilaacayso ilaa uu gabalku uu ka dhaco. taas baa waxaa la yidhaahdaa luqada carabiga imsaak, afhaysasho ayaa la yidhaahdaa. xagga sharcigana waa midii hadda aanu tilmaannay oo ah inaadan waxba cunin, waxna cabbin, wax soonka jebiyana aadan la imaanin laga bilaabo wakhtiga ay salaadu dilaacayso ilaa uu gabalku ka dhaco. waxa aad intaa oga tegayso waxaad u baahan tahay waa cibaado aad ilaahay dartii oola imaanayso sala allahu calayhi wa aalihi wasalam. qodobka labaad, soonka xukunkiisu muxuu yahay marka miisaanka sharciga lagu eego? waa waajib baan leenahay, maxaa yeelay arkaanta islaamka ee shanta ah ayuu ku jiraa. qur-aanka ilaahayna waa ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala. culummada muslimiintana way isku ogolaadeenoo way ku ijmaaceen soonku inuu yahay waajib. bal qur-aanka aan idinka tusiyo daliil. qaala jala wacala: yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam. kelimatu kutiba waxaa laga wadaa furida, waa laydinku waajibiyey. calaykum asiyaam ma keligeenba? maye ummadihii naga horreeyeyna waajib buu ku ahaa. oo maxaa u daliila? dhegayso aayadda dhammaystirkeeda, hana ka degdegin. qaala jala wacala: kamaa kutiba cala aladiina min qablikum, ay alyahuud waannasaara, iyo ummadihii ama umamkii naga horreeyey. xikmada ku jirta soonkuna waa maxay? aakhirka kelimada aayadda kelimada ugu dambaysaa lagu sheegayo waa lacallakum tattaquun, inaad alla ka cabsataan oo alla aad ka dhowrsataan, amarkiisana aad fulisaan. aayaddaa way nagaga filan tahaye ma idinku daraa aayad kale oo waajibnimada soonka tilmaami? jawaabtu hadday nacam tahay, dhegayso. alla wuxuu leeyahay subxaanah: shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aanu hudan linnaasi wabayinaati min alhuda waalfurqaan faman shahida minkum ashahra falyasumhu. alla wuxuu leeyahay bisha ramadaan
ayaan dhexdiisa ayaan qur-aanka soo dejinnay. qur-aanku hanuun iyo hidaayo iyo caddayn dadka xaqa iyo baatilka loo kala caddeeyo ayuu dadka u yahay. haddaba qofka ay bisha ramadaan u dhalato, shuruudahana gadaal baan ka sheegi doonaa, qofka soonka lagu leeyahay ha sooma buu rabbigeen leeyahay subxaanahu wa tacaala. haddaan qur-aanka labada aayadood idinka tusay waajibnimada soonka, bal aan idiin sheego ama aan farta idinku fiiqo axaadiidta rasuulka sala allahu calayhi wasalam. waxaad kulligiin yar iyo weyn garanaysaan xadiidka carruurta loo laqino ayagoo yaryar, 40 ku yaalla, waayeel iyo carruur iyo ciroolana ay wada yaqaanaan. waa xadiidkii cabdullaahi binu cumar radia allahu tacaala canhu qaal qaala calayhi asalaatu wassalaam buniya alislaamu calaa 5. islaamku wuxuu ku taagan yahay 5 tiir. 5 baa la soo tiriyey. tiirka koowaad wuxuu noqday inaad alla aqoonsato, cibaadadana keligii aad siiso, nebi muxamedna aad qirto inuu yahay rasuulka xaqa ah ee alla uu soo diray, ambiyadana ugu dambeeya, wuxuu la yimidna uu yahay wax waxyi ah oo alla xaggiisa laga soo amray. waana kelimada islaamka lagu soo galo, shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulullah, oo laa macbuuda bixaq, alla xaq lagu caabudo oo cibaado iskale inuusan jirin ilaa allaha koonkan abuuray ma ahane. qodobka labaad oo muhiimka oo cajiibka ah, in badan oo muslimiinta ka midana ay dayacaan, waa iqaami salaa, waa salaada oo la toosiyo. qodobka saddexaad waa xuquuq ay masaakiintu leeyihiin, itaa'i zakaa, zakada oo la bixiyo. haddaba bisha ramadaan oo la soomo waxaa ka horeeya riwaayadan hadda cabdullaahi binu cumar in xajka qofka muslimka ah cimrigiisa hal mar inuu soo xajiyo, taasaana waajib ku ah. inta kale waa sunno. ama qodobka ugu dambeeya waa sawmi ramadaan. haddaba ma garatay soonku inuu yahay waajib oo nabi maxamed uu caddeeyey carabkiisa qiimaha badan, sarreeya, sharafta badan uu noogu caddeeyey calayhi asalaatu wassalaam. maxaa ii soo hadhay? culummada muslimiinta oo dhan waxay isla ogolaadeen soonku inuu waajib yahay. culummada soo rartay in laysku ogolaaday oo ijmaac baa luqada carabiga lagu dhahaa. intaan kitaabka aqriyayno ama aan muxaadaro dhigayno waxaan isticmaali doonaa ijmaac. macnaheeduna waa maxay? culummadu waxay isla afgarteen oo ayna isku khilaafin. saasaan ka wadaa. ibnu qudaama caalimka la yidhaahdo waxa uu leeyahay muslimiintu waxay isku afgarteen soonku bisha ramadaan la soomaa inuu waajib yahay. 2 qodob baan soo tilmaanay. 2 qodob maxay kala ahaayeen? maxaa la yidhaahdaa soon luqada carabiga iyo culummadu waxay ku heshiiyeen oo istilaax ah. waxaa kaloon ka soo warannay xukunkiisu muxuu yahay, ma waajiba mise waa sunno. waxaanu soo caddaynay soonku inuu waajib ku yahay kitaabka qur-aanka ah, kow, sunnada nabiga calayhi salaatu wassalaam, iyo culummada ijmaacooda. bal aan waxaan idiin tilmaamo bisha ramadaan ee na sugaysa ee noo soo socota ee martida ah ee aan soo dhoweynayno, talo fadli intee dhan bay leedahay. hal xadiid ama 2 xadiid aan farta idinku fiiqo. xadiid adin badan maqasheen aadna u gaaban, ilmuhuna ay xifdin karaan. qaala calayhi asalaatu wassalaam, wa min xadiidi abi hurayra, man saama ramadaana iimaanan واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. asagoo gaaban xadiidku oo alfaadiisu ay gaaban tahay, haddana waa xadiid aad u macno badan oo macnihiisu aad u ballaaran yahay. wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wassalaam, qofka bisha ramadaan sooma asagoo yaqiinsan inuu waajib yahay, asagoo soonka uu soomayo ajir ka raadinaya, waxaa loo dhaafaa wixii dembi ahaa ee uu horay u soo galay. allahu akbar. fiiri hadiyada iyo tilbudka, hadiyada iyo catiyada, siismada, naxariista, gogosha uu alla noo fidiyey, yaa ubaxa uu alla noo fidiyey, bal u fiirsada. laakiin yaa aqbalaya? waa su-aal da-weyn. waxaan kaloo rabaa inaan tilmaamo xadiidkii sahl ibnu sacdin. waa xadiid cajiiba asagana. xadiidkaa qofka dhegaysta wuxuu aad u jeclaanayaa ilaahay inuu bisha ramadaan gaadhsiiyo.
هذا إلى دقيسو نبينا عليه الصلاة والسلام وحليه إن في الجنة بابا يقال له الريان ما تعشى باب كائن القشو الري لغة عربي حلوين هذا قف مركو بيها كدرجو أما عانها كدرجو أي الري اللي هذا بسم الله هذو أنت كدرجنا الري لما ينادو شبع بالليل هذا إن في الجنة بابا بابك البابك الباب أي الجنة كل حيالا مرة مر عيسى أنت هذا شعلان إن هتقشوا مر عيسى الريان وبابك عكرانتا في صومالي جوين عكران بالويل هذا وقفك مركو عانه يبيها كدرجو طلعوا البابك يا كجليا لقيس هذا النبي عليه الصلاة والسلام مركز قصة اللي ذو كذب النبي عليه الصلاة والسلام ويا النبي عليه الصلاة والسلام عليه من صلى علي صلاة واحدا صلى الله عليه بها كم 10 مربتا إلهي إنه تمانشر قصة اللي مركز النبي مجي عيسى مغشو قصة اللي صلى الله عليه وسلم نبي عليه يدخل منه الصائمون قرمة يوم القيامة وحكجل دون الباب كقوة صوما قرمة مالت قيامه أو عدك أو راعي سبجرتا لا يدخل منه أحد غيرهم إذا يقاهين مسوق ليه ولبا ربي بعد وقوه حولها أين الصائمون كوي الدنيا قاتشده إيا أونكا شهواتك إيا وحي نفتش عشاي أنا قدرتي أوغتي أوي مركاسي ده يوانك فيقومون وركاسوا وحولها يا نبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق هذا قلان صوما الباب كهوستا لقى قفلي فلن يدخل منه أحد حديث كاين تاسو تشير بكوسو أرورتي فضل لغا بش رمضان رمضان ما يكون أغا فلانتاي هذا ويكم بدنتي أغو لكن هذه لما حديث لغو شيغي انت كلنا أغو كتبتك عليكو الله محاضرات كانت كده جيسان دونتا علماء كله تيفي يده مساجد يده يوتيوب يده فيسبوك يده انترنت كا شبكة العنكبوتية سيدي يده درسك نينك ستوك وداما بعد ذلك قبصه نحولي النبي عليه الصلاة والسلام قفك مؤمن كأب حكمته وبايديسي هدوه لنا أساقا أوحق لما بدن أو قادنا إياه قضب أفراد عنكو سيو صونكو سيدي سبا قورما أيو واجبا أو إلا الصوماي أي واجب نغطا لبا الرموض بأغو مهمسا واميدا قوباده إن بش رمضان لأركو هنا يجب صونكو مركا واجبا يا كورما واجبي كرا لا ما واجبي كرا هدادي ويدي صد هذا صون قورمو واجبا هرتا بش رمضان وين لأركا لكن أرين بدو بهانتو إلو فهم سيو بش إسلامك ما يغيكو دماتا في صحيح مسلم جوابت كرالي أو يا نوشيغيا رسول الهدى عليه الصلاة والسلام نبي الله صدري بشرية إنه كسر مجدية ونصار إفتينك عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم الشهر هكذا وهكذا وهكذا سدح شير أي نبي عليه الصلاة والسلام كي سفروا ساسيري بيشو ساسي نقطة بمعنى صدم بيكون ما كرتا بيش إسلامك مرة بالمحيري الشهر هكذا وطبا وهكذا ولباتا وهكذا سولك إلا برفيري سقالي لباتا وي إذا بيش إسلامك سيديري لباتكم دماتو بيش إسلامكم كوبي صدمكم دماتو لكن بيش إسلامكم لبا مد بيكون دماتا سقالي لباتا أما صدم علمك ما فايدة سمانت كفايدة سمانت waxaa laga yaabaa inaad maanta ka hor maqal jeebka gasho qalbigaagana ku weelee haddaad fahamtay bishu inay labada ku dhamaato bishii markay 29 ku dhamaato oo la arko haddaba waa la soomayaa yaa soomaya gadaal buu kaaga imaan doonaa sug laakiin waa la soomayaa soonku waa waajibaya qofka waajib ku noqonaya qodobka labaad بيش لما أركن
ama maba dhalanin ama daruuro ayaa qariyey lama arkin soddonkaa la dhammaystirayaa walidaalika aan ku siiyo marka daliil baad u baahan tahay diinteennu waa diin u baahan caddayn sheekh waxa aad sheegayso caddaynteedii nasiib qabsehe yaquulu calayhi salaatu wassalaam xadiidka bukhaari waa xadiid saxiixa bukhaari muslim min xadiid abi hurayra yaquulu calayhi salaatu wassalaam suumuu liru'yatihi wa aftiruu liru'yatihi xadiidka labadaas qaybood wuxuu kaga jawaabay labadii arrimood aan kuu sheegay qaybta koowaad waxay ahayd suumuu liru'yatihi bisha ramadaan waxaad ku soontaan aragti wa aftiruu liru'yatihi markuu bisha ramadaan dhammaato oo shacbaan la gaadho shawaalla ayadana aragti ku sooma waan arki weynay dhegayso xadiidka qaybtiisa ma dhammaanine ha degdegin xadiidka qayb baa ku hadhay mayna dhameeyaad moodaysaa maya hadiyada nabiga weli way kuu socotaa sala allahu alay wasalam bas wax yar qalbigaaga soo jeedi qalbigaaga soo jeedi bes dhegayso cidda hadlaya ma taqaanaa makhluuqaadku alla abuura kii ugu khayr badnaa weeye calayhi salaatu wasalaam soo nasiib maa inaad ummaddiisa ka mid noqotay asagoo dhintay kun iyo intaasoo qarni ka hor in hadalkiisii oo asagoo sidiisi a laguu soo guuriyo qalbigaaga dhagahaaga la maqashiiyo qalbigaagana loo gudbiyo ilaah baana taa iska leh soo waxaad ilaahay ugu shukrida ma aha iisoo jeeso ila soco marka xadiidkaan kuu dhammaystiro xagay kuu joogtay laakiin waxay kuu joogtay suumuu liru'yatihi wa aftiruu liru'yatihi ma xustaa aan kuu dhammaystiro marka fain gumma calaykum haddii laydinka daboolo oo daruur qariso ama aad arki weydaan facudduu 30 soddonka dhammaystira idan labadaasaa lagu soomaa marka la soomayo fa akmiluu ciddata shacbaana 30 bisha shacbaan la yidhaahdo soddonkeeda dhammaystira laakiin waxaa laga yaabaa inaad su-aal i weydiiso oo waa maxay bisha qofkeebaa hadduu arko soonku waajibaya waxaan leenahay si basiida kelimaad yar waxaan leenahay bishahaadati muslimin cadlin walow daahiran qof muslima oo caadil ah oon xumaan lagu aqoonin oon macsi lagu aqoonin walow hadduu doonaba gaalnimaha qarsaday annagu ma naqaanee xagga muuqaalka may ku adagtay inta bishahaadati muslimin caadil hadduu arko soonkaas isagaa waa la soomayaa biidni illaahi subxaanahu wa tacaala waxaa laga yaabaa inaad su-aal kale i weydiiso oo dadayaa sheikh adduunkii maanta waa batay afriqiya oroba amriika aasiya austraaliya adduunkii maanta waa batay hadda qolaa jiifta qolo ayaa tukanaysa salaad qolona way hurudaa siday arrintaasi laysu waafajinayaa jawaab kooban qabso awalan dadka isku qaabka ah ee isku juquraafiga ah ama isku dhadhow way isla soomayaan waayo ayagu waa isku juquraafi مثلا أفريقيا كسوقات أفريقيا كسوقات قلا أيا أركتي قلا ذا كلام مين أركين قلا ذا كلام وين لسوميس إن شاء الله تعالى علماء أركت كلا قبتنا واجران أركت ذا لكن قبصة قلا والبقى اسكو مطالع بالي هذا اسكو جغرافيا أو قاب كأي قرح ذا وصل بحضه أما قرح ذا أقول دعضه أي اسكو نويهين ولو شني 8 دقيقة 20 دقيقة بهكذا الريانة قلا ذا أيجا isku sibay u soomayaan waa mawduuc hadalkiisu u dheer yahay laakiin ayadoo kooban inta ayaan ku siinayaa biidni illaahi subxaanahu wa tacaala waxaan u gudbayaa qodobada haddii aanu garannay soonku intuusan ani igu waajibin maxaa laga rabaa yani qofka muslimka ah intuusan soonka ku waajibin maxaa laga rabaa inuu nooceen noqdo qofka muslimka ah وحالي الشروط
وجوب الصوم وأفرق قبصو قرن يبوك ما يستا طوله كو الإسلام الحمد لله على نعمة الإسلام قفك وإنه يهقف مسلم وقالك لك مرة مياه آخر ولا قربا سيد الراجحة لكن الدنيا لك مرة سببت متقانا مسكود أي كرتين هذا كجواب تعالوا أنت أنا نكون شيء وأنا وهينا القرب يسوع لكن أنا أمسك الشيء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله والباب كقراء اللي جسوا جلي إسلام كاسا كم قال قفك أن كلمة لا كنا واقعنا سكستو الصوم سكستو أتكدو سكستو صدقوا بحيو لقى ما أقبليو محايا مسلم معها وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يرب النوغة الشاكين يا آخر مركلة تقول وحي وناك سمينيين دبيش على الراعين يا سببت وامحي ربي كلي مين قرن أو مين أعابدين عبادة نبتأهي إذن الإسلام هدان كنا الإسلام يا كاب حيا بس كنت يكرتا كافر كاب حيا محاضي كرتا محاو دليله قال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين نبي أرن أرق بلوتشي عليه الصلاة والسلام ومدي سنة وكسعتها أرنتها صيادة وحالقويني ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك أذي يكوي إذن كوري وحلو وحيوذي كلمة صوصعتها لئن أشركت يا محمد عليه الصلاة والسلام نبي محمد هذا إلهي وحك لا عابده لا يحبطن عملك عمل كاي وبريا خلاص هذه النبي محمد سال لقولي أيضا رسول تقال هاي إنه إلهي وحك لا عابده ورك أنه نقص على مرك أيضا مرك وحي دليل تهاي إن أن قال كان لقى أقبلين هدوس الشهادة الله إيمان عباده ما كودنا دليل كله وقتك صوغ قابلنا وأن كودنا كاري لها قرآن كواكبوحا لكن قلب كوبا القبصو إسلام قلب كلمات البلوغ وإنه وقفكو يهي قانقان محالة وضع انت أنا الشيقين أنكو سيئة دليلك عدينا يا قفكو أصبعون قانقان أهين إنا وحبه واجبكو أهين هدوس قانقان يقول عليه الصلاة والسلام من حديث علي بن أبي طالب رفع القلم عن 3 صدح قلن كوالا قاضي وحب الله لو مقريو الله يقر قاضي عن المجنون حتى يفيق قف كوالا إلى أمير كيسي كسولات وعن النائم حتى يستيقظ قف كتشيفا إلى أكسو توسو وحو كل رياضة أنا وحبك مجران وعن الصبي حتى يحتلم وماشي أنا وسعني حديثك من أصعطا هل كاس أنا وسعني حديثك قفك المها يركأ صار لك مرة إلى وقان قارو قان قاركو وركا ما قال وقان قارا قبصو ويلي يا قبربا وحي كسميهين كو 15 جير قفك هدو 15 سنة حيرو قبر لب يا ندك ويلي يا قبر وقان قار خلاص قدامه صلى الله عليه وسلم هراي هو سعنين هراي شري تمام وحي كأوا قانقان لكن قدامه صلى الله عليه وسلم وحادع كرتا أصلاً شري تمام قارين وقانقان سيده وحادع كرتا حضنت هوست هذا إن اجتماع على كسر بحان قبر يويل بواقانقان ما لا صعتا ويل كاج ما لا صعتا قبر هذا مسه سيدي دادا اللوغة عرريي ee dadka waaweyn daada uga cararayeen ayay ilmahoodina la yaryihiin shalay dhalatay shalow dhashay waa ilmo caruur ah hada waa qof qaangaara la soco waalid hadaa tahay arinta ku baraarug waa muhiim xudunta hoose inay tima ka soo baxaan qaangaarkii baad haysatay timana waad haystaa tima adag waa labo qofku inuu shahwo yeesho shahwadu waa biyaha duula
ilmuhu ay ka dhashaan ayaa shahwo la yidhaahdaa. shahwadaa qofku hadduu yeeshana waa qaangaadh. saddexdaa aa sheegay wiil iyo gabadh way ka siman yihiin. mid bay gabadhu gooni la tahay, waa caadada ama dhiigga dumarka khaaska u ah. idan xagga wiilasha waa 3. ma xifsantahay saddexdaa? xagga gabdhahana waa 4. qalin iyo buugii waad haysatay waadna qoratay insha allahu tacaala haddii aan la yidhaahdo. ha lala socdo marka carruurta. qodobkana waa qodobka 2, alislaam walbuluuq, qaangaadh. qodobka 3 oo gabadha khaaska u ah waa caadada iyo uurka. gabadhun baa la arkay iyadoo uur leh, waa qaangaadh. dhiig kuma dhicin, qasab ma ogo gabdhuhu inuu dhiig ku dhacee. gabdhaha qayb uusan dhiig ku dhicinba, saa ma la socotaan? laakiin gabadha uur laa la arkay, qaangaadh way gabadha. caadaduna waan soo sheegnay. qodobka 3 waa alcaql. qofka soonka lagu leeyahay waa inuu maskaxdiisu joogto oo uusan waalayn. ma xustaa mar dhaweed xadiid aan soo marnay, wa can ilmajnuuni xataa yafiiq aw xataa yacqil. qofka waalani ee dar alla u waashay soo lagama rabo ilaa uu ka miirsado. asagana xadiidkaas baana u daliila. qodobka kale alqudratu calayhi, qofka waa inuu soonka awoodo. laakiin ila soco, qodobkan aad buu muhiim u yahay. waana ogahay inay su-aalo badan ka imaanayaan qodobkan, culimmadana in badan lagu wareerin doono. waana su-aalaha aan dhammaanin bay ku jiraan. awooddu waa 2, awood la-aantu waa 2. markii la leeyahay qofku inuu awoodo, awood la-aantu 2ay ka bilaabanaysaa. jiro kugu timid, madax xanuun, dhabar xanuun, madaxoo ku xanuuna, dhabarkoo ku kala go-a maalan, qandho adagoo ku qabata, waa cudurdaar ama awood waqti ku xidhan. saa daraaddeed qofka maxaa laga rabaa? wuu soomay, wuu afurayaa. maalmihii xanuunka noocaasihi uu soonka uu kaga tegayna gadaal buu ka soo qadaynaya. kaa warkiis waa yiri, waa awood aan sheegayno. midna cudurkan haya waa cudurka la yidhahdo marad musmin. waa cudurka qofka daa'ima ee adag tahay inuu soomo, sida kansarka, sida cudurka sonkorta qaybtiisa ama qaybta khatarka ee adag, sida qaybta dhiikarka, sida qaybka dhiikarka qaybtiisa adag, gastriga qaybtiisa adag, wahaakada. waxaan qaybtiisa adag u leeyahay asagaan qaybo ah. marka qayb loo adkaysan karo iyo qayb aan loo adkaysan karin baa jira. qof walba marka waxaa lagaa doonayaa ninka sheekha ah u tag, su-aasha weydii. ninka sheekha ana nin dhakhtaru weydiinaya markaa. maxaa yeelay sheekhu wuxuu ku xidhan yahay masaladan oo kale marka laga hadlayo dhakhtar. dhakhtarkaana waa inuu yahay dhakhtar muslima. limaada? lianna dhakhtarka aan muslimka ahayn markaad u tagtoo dhahdo soonkaa dhibigu ah, wuxuu ku dhihi yaaba soonku yidhi horta, yaaba qatanowku yidhi horta, yaaba ku amrayba horta. welimaada isu dilaysaa? laakiin ninka muslimka ah wuxuu og yahay markuu kuu qorayo ku leeyahay ma soomi kartid, asaga amaam allahi qaadaya. marka labada u kala qaybi awoodda laguu sheegayo. waxaa kaloo awooddaa soo gelaya qofka duqa ah ee waayeelka ah, 90 jirka iyo 100 jirka. xanuunba ma hayo, laakiin da' baa haysa. maxaa la samayn? labadii u dambaysay hadda oo qofka kansarka iyo cudurrada waaweyn qaba allaha naga caafiyo, inta uu cudurka ku dhacayna allaha ka caafiye, iyo qofka waayeelka ah waxay quudinayaan 30 miskiin. ayagu ma soomi karaan, waxay quudinayaan 30 miskiin. waa furayaal. laakiin tafaasiisheeda waxaad oola tegaysaa biidn illaahi subxaanahu wa tacaala culummada. waxaa kaloo kugu darayaa haweenayda xaamilada ah, uurka ah, iyo haweenayda ilmaha jaqsiinaysa ama nuujinaysa, labaduna cudurdaarkaasi ku jiraan.
awood la'aantaasay soo gelayaan sidaa daraaddeed baa waxay u bannaan tahay hadday haweenaydu u baqdo nafteeda inay afurto waa markay maxay waa markay tahay xaamilada nafteeda u baqaysaa markay nuujinaysana ilmaheeda u baqaysaa oo ilmihi wuxuu ka nuugu u baahan yahay caanuhuna cuntay ku xidhan yihiin saasma sidaa daraaddeed waxaa u bannaan gabadha ayada ah inay afurto haddee talow maxaa laga doonayaa hadday afurto sida xoogga badane raajixa ah way u soo qadaynaysaa maxaa yeelay qaybtii aan soo sheegnay ayay soo gelaysaa qaybtan waxaa kaloo soo gelaya qofka musaafirka ah asagana awooddii buu soo gelaya awood la-aanta waa safartay intaad musaafirka tahay diyaaradda saaran tahay tareenka saaranteed lugeynayso dameerka iyo faraska aad ku safartay aad safarka ku tahay ayadana waxaa kuu bannaan inaad afurto mar alla markii aad soo noqoto ayaad markaa aad soo qadaynaysaa waxaan aad iyo aad u rajaynayaa biidn illah masaa'ilka fiqiga ah ee muhiimka ah inaanu ka faa'iidaysanay kullu dalika waa sahalidda shareecadeena islaamka qaala jala wacala yuriidu allahu bikum lyusra alla wuxuu idinla doonay fudayd buu alla idinla doonay subxaanahu wa tacaala mar walbaba walaa yuriidu bikum alcusra ilaahay culays idin lama doonayo subxaanahu jala wacala sida oo kale waxaa aad iyo aad muhiim u ah inaanu fahamno ama qofka sooman uu fahmo waxyaalaha soonka jebiya ma ku celiyaa waayo si aad si fiican ugu dhegaysato waxyaabaha soonka kaa jebiya ama waxyaalaha soonkaa jebiya 7 ka dhigi karaa 8na waan ka dhigi karaa laakiin waxaan leenahay kow inaad wax cunto ama aad cabto kas iyo olakacna aad u cabtaa waxaad dhihi kartaa maxaad kas ugu dartay waxaan kuugu jawaabayaa waxaan kas ugu daray kas saa daraaddeed waa inaan kas wax u cuntaa ama aad kas wax u cabtaa qaala jala wacala caddaynta dhegayso wakuluu washrabuu cuna oo caba intee xataa yatabayana lakum alkhayط alabyadu min alkhayط alaswadi min alfajr ilaa salaadu ay ka dilaacdo warka gabagabadiisa waa intaa ilaa ay salaadu ka dilaacayso wax cuna oo wax caba haye salaadii baa dilaacday allahu akbar allahu akbar mu'adinkii baa adimay maxaa dhacaya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay huma atimu asiyaama ila allayl soonka dhammaystira ilaa habeenkii laga gaadhayo khalaas mar haddii la adimo wax kasta oo soonka jabiya laguma ogolo hadda laakiin cunid iyo cabid wa kuluu washrabu waa habeenkii ilaa intee xataa yatabayana lakum alkhayط alabyadu min alkhayط alaswadi min alfajr waxaad ii weydiisay haddaay ma xustaa maxaad ugu dartay kelimatu olakac iyo kas qofka wax u cabaa ama wax u cunaa si olakaca anna maxaan ku jawaaba ma garan waxaan ku idhi waxaan ugu daray kas dhagayso daliilka qaala calayhi الsalaatu wassalaam man nasiya wa huwa saa'imun faakala aw shariba falyutima sawmah fainamaa acamahu allah wasaqaah qofka asagoon is ogayn hilmaansan qofka asagoo sooman oon is ogayn wax cuna wuu sooman yahay markaasuu hilmaamay wuu cunay oo wuu cabbay nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu leeyahay kaama jabin soonkaagii oo maxaan samaynayaa dhammaystira soonkaagii oo waxaan aan cunayn cabbayna arsaaqad ilaahay wey allahu akbar qalbiga yaa haya allah isagaa leexiyey xusuustii buu ka qaaday waa arsaaqad ilaahay kuu soo kaxeeyey oo uu ku siiyey waadna dheragtay waadna sooman tahay diin ka macaan ma aragtay weliga diinta islaamka diin ka macaan ya diin ka macaan oo diin ka fudud laakiin dad baa culays u maleeyey man nasiya wa huwa saa'im faakala aw shariba falyutima sawmahu fainamaa acamahu allahu wasaqaah qodobka labaad
kaasi waa cunidda iyo cabitaanka qofka hadduu wax cuno ama cabo kas qodobka labaad oo soonka kaa jebinaya aljimaac waa galmada nin iyo xaas isqaba oo gogol tegay maalin ramadaan ama xaaraanba ku dhacay nacuudu billahi subxaanahu wa tacaala galmada hadday dhacdo oo labada gudnin istaabtaan soonkii waa jabay waxaa laga yaabaa inaad dhahdo daliil baan kaaga baahnahay weliba waxaan kuu raacinayaa tani kafaara ka waajibi kafaara maxaan ka wadaa haddaad arki doontaa xadiidkay dhegayso horta abu hurayra wuxuu leeyahay radia allahu tacaala canhu maalin maalmaha ka mid a annagoo nabiga la joognaa calayhi asalaatu wassalaam nabiga waxaa u yimid nin saxaabi wuxuu yihi rasuulka ilaahayow waan halaagsamay nabigu wuxuu weydiiyey maxaa kugu dhacay wuxuu yidhi xaaskaygaan ku dhacay maalin ramadaan markaasuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam ma heli kartaa addoon aad xorayso ma haysataa addoon waxaa la yidhaahdaa gaaliya muslimiin goorta uu jihaad dhex maro dadka laga soo qabsadaa la yidhaahdaa wuxuu ku yidhi hal tajidu raqabatan tuctiquha addoon aad xorayso ma heli kartaa markaasuu yidhi maya su-aasha labaad ee nabiga dhegayso calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ma soomi kartaa 2 bilood oo isku xigta markaasuu yidhi maya su-aasha nabiga dhegayso calayhi salaatu wasalaam 60 miskiin ma quudin kartaa saxaabigu wuxuu yidhi la iska fadhiisa buu yidhi marka xoogaa annagoo markaan fadhiinay kadib nin baa wuxuu keenay dembiil weyn oo timira nabiga ayuu u keenay sala allahu alay wasalam markaasuu nabigu wuxuu yidhi awey ninkii su-aasha i weydiinayay markii dhowey haa ana yaa rasuula allahi waaika qaado oo iskaga bixi buu yidhi kafaaradii iyo arrintaas samaysay wixii waajiboo ka imaaday markaasuu wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow cid ama qoys iiga baahi badan cuntadani maanta maba jiraan nabigu intuu qoslay calayhi salaatu wassalaam ayuu yidhi orodoo ehelkaagii sii ara'ayta xadiidkan maxaad ka fahamtay haddaba qofka maalin ramadaan xaaskiisii u taga galma sameeya soonkii waa ka jabaya koow waa qodobka labaadee kafaaro ayaa waajibaysaa maanta addoon haddaan la haynin 2 bilood oo isku xigta waa inaad soontaa ama 60 miskiin aad quudisaa amadaasi ma tartiibba mise waa takhyiir waa masalo culummadu isku khilaafeen wey qodobkana waa qodobka labaad ee jebinaya soonka qodobka saddexaad waa attaqayu camdan kii hore kasna waa ku jiray la soco attaqayu camdan inaad kas iskaga matajiso ood afka aad gacanta geliso hadduuse ku soo dhaafo laa ba'sa wax dhibaato a ma leh saa daraaddeed ayaa nabigu sala allahu calayhi waaalih wasalam xadiid uu sheekh albani saxiixiyey wuxuu yidhi man daracahu alqay'u falaysa calayhi qadaa'un waman istaqaa camdan falyaqdi qofka uu soo dhaafo mantagu facalayhi alqadaa falaysa calayhi alqadaa baan ujeedaa falaysa calayhi alqadaa soonna kama jabin qadana lagama rabo qofka gacanta kas u geliya afkiisa kas gacanta u geliya gacantiisa kas afka u geliya ama iska matajiya ama sabab u samaysta qofka asaga ah waa inuu soo qadeeyaa macnaheedu waa maxay soonkii waa kaa jabay idan wuxuu ku jiraa mantagu waxyaalaha soonka jebiya ayuu ku jiraa maxaa kale alistimnaa qofka oo shahwada iska keena asagu dariiqadu doono ha iskaga keeno asagoon xaaskiisa u galmoonin hadduu doono
xaaskiisii hataa taabto oo saa hooga timaado ama derbi ha isku nabo ama furaash ha isku dhajiyo ama gacan ha isu isticmaalo xaaraamnimadeeda kama hadlayno laakiin waxaan ka hadlaynaa in soonka waxa jabiya xalaal iyo xaaraam labaduba waa jabiyaa haddii shahwada noocaasa ay timaadana oy camdan ku timaado iraadadiisa ku timaado ayadana soonkii waa uu jabayaa waxaa kaloo soonka jabiya inaad niyadii kala goyso alcazmu cala alfitri waxaad go-aansatay inaad soonkii kala jarto waabaad go-aansatayba inama alacmaalu binniyaat walidaalika niyadu waa inay xidhiidhsan tahay laga soo bilaabo goorma min tuluuci alfajri alsaadiqi ilaa guruubi ashams waxaa kaloo soonka jabiya alxaydu waannifaas soonkuu jabiyaa caadada labada dhiig ee dumarka khaaska u ah mid waa caadada gabadhu ay hesho bishii hal mar 6 ama 7 beri maalan siday dumarku u badan yihiin caadadaasi haddii ay ka timaado ama gabadha ku dhacdo ayadoo afurku 5 daqiiqo ka dhiman yahay gabadha soonkeedii waa jabay maalintaana way soo qadayn inta ka hadhayna cunto way cuni kartaa sidoo kale haddii caadadu way soo haysay oo caadadu ay ka go'day goorma intayna salaadu dilaacin 10 daqiiqo gabadha way niyoonaysaa soonka walow salaadu markay dilaacdo kadib ha qabaysatee gabadha maalinta soonka waa lagu leeyahay dhiigga labaad waa dhalmada ayadoo gabadha u banaanay inay iska afurto laakiin gabadh baaba tiri waa soomaya kadibna way umushay ama ayadoo soomanayd baa lagu soo booday way dhacdo way kuftay kadibna dhiiggii waxaa ka yimid dhalmada ama irhaasaadkii dhalmada foolcacabkii wixii la midka ahaa idan gabadhaas iyada ah caaisha waxay leedahay nabiga gabadh baa weydiisay mucaado la yidhaahdo gabadhu maxay u soo qadaynaysaa soonka oo ayna salaada u soo qadaynaynin riwaayo kale oo abi saciid alkhudri alaysa ixdaakunna idaa xaadat lam tusalli walam tasum idan waxay daliil u tahay gabadhu hadday caadada ku dhacdo inaynan soomaynin الردة قفكو أصغو صومنا إنو إسلام كما كبحو وأما كلمة قال لما أكو هذا الله أما قلبك اعتقاد فاسدة أو قال لما قلبك قشدو أما فعل قال لما أو سمعيو هذا وقفكو هدي وقال لما كنا عنا سوكي سوى جبيا قلبك أبدا بي إن شاء الله ما يقوم مقام الأكل والشرب wax kastoo istaagi kara booska cunida iyo cabitaanka sida faleebada qofka markii isbitaalka la seexiyo cunida iyo cabitaankii booskiisa istaagaya inta aanu soo sheegnay bilowgii ilaa soonka waxyaalaha jabinaya allah waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala inuu naga dhigo kuwa ka faa'iidaysta kuna dhaqmo oo ku camal fala ogaada soonkii waa soo dhow yahay علمي والبنا وحكو في عيهي إلا صيبرتو انت هذا قدقلين صومك لو ونفسنو أديقو الصومك كود عجرة إن أضوحي انت الكلا قران ويدو أبدا هذا الشيخ وما بنانتا يوم يسمى بنانو إيوه انت الصومك بلقارين إن أصي أغاتو علمي أسيالتو علمدنا أسي ويديسو مروى البسي ويديسو قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وإلى لقاء آخر انت أنو كيكل ما إنه كونا أن كان هين وحين كيتغيا أمانة إلهي إيا الرعاية إلهي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.